بسم الله الرحمن الرحيم عشان wuxuu la socdaa casharka hore ellipse waa tusaalaha saddexaad equation kan loo diray center kan raadinayna centerka meesha uu yaal waxa ku ogaan kartaa vertices na la siiyay vertices na la siiyay coordinate 0 0 waa ku jira si ogeed marka waa maxay origin ku yaala origin kuna waa 0 0 oo bartaa labadan na la siiyay vocayga iyo verticeska vocayga wuxuu noo sheegayaa waa qiimaha c vocayga xeer baa lagu soo saari jiray c inta la eg tahay wala ekaan jiray sidaas marka c waxa la mid ah positive 3 iyo negative 3 kan waa major axis maadaama major axis uu yahay major axis ka u taagnaan jirtay ana waxa la eg tahay positive 5 iyo negative 5 ay tahay b mahayno oo minor axis ku taagan ku hormar eeda marka waxaan sameeynaa 5 baan durki doonaa laakiin xagee loo durki doonaa waxa ku xiran tahay major axis kaaga ma x axis budhacaya mise y axis oo fiirso coordinate-yada lagu siiyay 0 5 0 negative 5 5yada ma x ya mise waa y weeye sidaas marka y axis ka lagu soo doonaa xaga kore 5 u durug hoosna waa maxay 5 u durug marka positive 5 goorta tahay halkaas u dhacaya bartatan waa maxay waa negative 5 way okay go imo sidii si lamida major axis maadaama uu yahay saddex ka soo durug hoosna waa maxay saddex u soo durug isku soo xir major axis ka ellipse ga aan sawirnay dhererkiisu waa sax weeye laakiin minor axis kiisa inta uu leeyahay ma hayno minor axis ka b way ku xiran tahay b hadaan helno minor axis kiisa aan helno way iska qiyaasa dhererkan minor axis anoo ka faa'iideysanayna xeerkii vocayga kadib a iyo c qiimayaashoodii waa haysanaa c qiimaheedu waa 3 a qiimaheeduna waa 5 way b qiimaheeduna raadinayna isku garee kadib 5 iyo 20 iyo 9 waxaan wareejinaynaa 9 ka soo wareeji waa kala jarmaya marka haday kala jarmaan 16 baa soo hari doona square root ka saar positive 4 negative 4 sidaa marka b qiimaheeda hadaa heshay minor axis ka dhererkiisa waa heli karnaa minor axis ka waxa lagu heli jiray 2b waxaan sameynaa marka hadeer waxaan sameynaa xudunta ama centerka waxa ka soo durugtaa dhinaca midig 4 ka soo durug xagga bidixdana waa maxay 4 u soo durug ellipse-ga day aan sawirnay minor axis-kiisu ma saxsanayn laakiin hadda aan sawirnay waa u saxsan yahay waxaan raadinaa marka qaybta labaad ee su'aasha equation-ka marka baasha maadaama ellipse-ga uu centerka yaal xeerka qaabkaas u qoran jiray b qiimaheedu waa haysaa a qiimaheeduna waa haysaa square garee un kaliya b goorta square garee waa 16 a goorta square gareena waa maxay waa 25 sababta way loo hoostiga maxay tahay maxay major axis ka dhaca salahan afraad waxaan loo diray equation-ka waxaana la siiyay major axis-ka iyo minor axis-ka dhereeradooda centerkeena waana la siiyay origin-ka ma yaal 3 negative 1 buu yaalaa waxaan sameynaa marka centerka marka hore aan sawirno centerka xagee dhacaya ellipse-gana aqwaalkeena bartamihiisu wuxuu dhici doonaa xuduntiisu waxay dhici doontaa meesha x ay ka tahay 3 wayna ay ka tahay negative 1 oo bartaasa length of major vertical axis ka maadaama uu 10 yahay macnaheedu waa maxay 2a baa waxa la eg tahay 10 maxay major axis ka a baa inoo ahaan jirtay major axis kana 2a baa lagu heli jiray 2a haday 10 la eg tahay a waxa la eg tahay marka 5 dhinac walba 2 u qaybi minor axis ka waa 6 baa la yiri taa macnaheedu waa maxay 2b baa waxa la eg tahay 6 la eg dhinac walba 2 u qaybi b waxa la eg tahay 3 hadda marka a waa vertical ku dhacay baa lagu yiri vertical nooya inoo ah y sababta a baa waxaan durki doonaa in la eg kor iyo hoos 5 kor uga durug negative 1 baa taagan tahay kor u durug waxay noqonaysaa 4 baa tagaysaa hoos waxa u durugtaa 5 waxa tagaysaa negative 6 way b da markan oo minor axis ka aan sawiraynaa b da waa horizontal axis ka horizontalna waxa ku waa x si ay midig iyo bidix durug midig waxa durugtaa 3 hadaa taagnayd oo 3 kale ku darto 6 baa tagaysaa 3 baa taagnayd 3 halka u durug halkaas tagaysaa negative 1 ka isku soo xir marka waxaan noo haray marka su'aasha qaybteeda labaad equation-ka ah equation-ka general formula hadeer waa kii marka aan centerka oo leen way marka waa maxay waa x - 8 qiimayaal baa la socda halkan u fiirso sababta a y loo hoos dhigay maxay tahay sababtoo ah a major axis-ka way major axis-kana hadeer y buu dhacaa sabab marka a da waxa la hoos dhigay y da hadii kale x ta la hoos dhigi lahaa a b qiimayaashoodu waa haystaa a waa ku 5 b na waa maxay waa ku 3 equation-kan loo diray waa ka tusaalaha kan shanaad waxaana la siiyay qabaalkan ama ellipse-ga vertices-kiisa ama geesihiisa baana la siiyay centerkii waxaan laga rabaa equation-ka waran horta kuwa kan baan bulad gareynaa meesha ay dhacaan coordinate-ka koowaad waa negative 2 macnaheedu waa maxay x meesha ay negative 2 ka tahay y-na ay 2 ka tahay waa bartaa way haddana 8 meesha ay x ka tahay y-na ay ka tahay waa maxay 2 haddana 3 iyo 4 haddana 3 iyo 0 waa garanaysaan isku soo xir marka qabaalkii baa samaysmay centerkan raadinayna marka centerka sidee ku heli kartaa qabaalkeena vertices-yadiisa jiifka ama geesihiisa jiifka eeg geesaha jiifka waxaan ka eegaynaa waliba meesha ay way ka dhacaan labadaba waxaan aragnaa coordinate-yadooda wayda waa 2 way sida awgeed centerkeena way coordinate-kiisa isna waa 2 way
haddana waxaa u timaadaa vertices-yada ama geesaha jooga ay u taagan yahay kuwa jooga markaa eegto waxay kuu sheegayaan meesha x ay ka dhacaan labadaba 3 way kaga beegan yihiin isaga centerkeena waa maxay x coordinate-kiisana waa 3 way isna way bartaas dhacaya equation-ka si aad u hesho marka koowaad waa inaad a iyo b qiimayaashooda haysataa a macnaheedu waa maxay waa major axis-keena dhererkiisu hadeer waa 10 way waa min 8 ilaa laga gaarayo -2 isaga 2a waxay la eg tahay 10 dhinac walba 2 u qeybi a waa 5 way minor axis-ka u imo minor axis-ka waa halkan ilaa laga gaarayo 4 si aad dhererkiisu isna waa 4 way macnaheedu waa maxay 2b waxay la eg tahay 4 dhan walba 2 u qeybi waa 2 way waxa soo qortaa marka general formula-hii sababta general formula hadeer h iyo k loo raaciyo waxay tahay maxaa yeelay centerka origin-ka ma dhacayo sababta x loo hoos dhiga maxay tahay maxaa yeelay major axis-keena wuxuu dhacaa hadeer x coordinate ku dhacaa sidaa marka a iyo b maadaama ay haysato a ku bedelo waa 5 square gare 25 b na square gare waa 4 way equation-kan loo dirayna waa ka example-ka lixaad equation-ka qaabka ay u qoran tahay fiiri qaab standard form ama qorna maxaa yeelay halka 36-ka 1 bay ahaan lahayd equation meesha ka dambaysa waxaa la rabaa 1 inay tahay si marka 1 halka ay u noqoto dhinac walba waxaan u qaybin doonaa 36 by 9 iyo 36 isu qaybi 4 baa hoos u noqonaya 4 iyo 36 isla baxayaan isu jar 9 baa ku haray 36 1 baa soo haray qaabka standard formka waa halka waxaa la rabaa inay 1 la ekaato a iyo b ma raadina a lambarka weyn buu leeyahay a square garaysan 9 baa la egtaa square root-ka ka saar b square garaysan waa lambarka yar 4 square root-ka ka saar waa 2 centerka ku soo haray centerka waxay u qoran tahay qaabkii markii centerku oo la origin-ka maxaa yeelay x iyo y da qiimeeya lama socdaan sidaa centerkan waa 0 0 eeda waa lambarka weyn y way hoos taala 3 baan kor iyo hoos u durkeena hadana 3 hoos u durug b da lambarka yar bay hoos taal waa lambarka yar oo x bay hoos taala sidaa xagga x ta soo durug 2 midig hadana bidix laba durug isku soo xir ellipse oo ku sameysmay su'aalahan toddobaad sidoo kale si standard ah uma qorna horeyn wixii x ya isxiji wixii y ana waa maxay isxiji 164 na maxaa dhan kale loo wareejiyo hadda waxaan sameynaynaa marka waxay wadaagaan dibadda u saar x-yada qaybta x-yada ah 9 bay wadaagaan qaybta y-dana waa maxay 25 bay wadaagaan dibadda u saar waayo complete square samee complete square waa maxay tibixda labaad waa 4 laba u qeybi waa 2 square garaysan baan halkan ku darnay halkan tibixda labaad waa horgaleedu waa 2 laba u qeybi waa hal square garaysan baa lagu daray waxa halkan ku sameey marka haddii halkan aan ku daraysay 2 square kumaadan darin 2 square waxa ku dhufsan 9 baa dibadda kaga dhufsan sidaa awgeed 2 square garaysan waa 4 9 ku dhufo waa 36 baa halkan lagu daray okay halkan 1 square kumaadan darin 1 square 25 baa ku dhufsan 1 square garaysan waa 1 25 ku dhufo waa 25 baa halkan lagu daray sidaa awgeed wixii qaybta lagu sameeyay qaybtana ku samee factoring ma sameynaa factoring maxaa sameynaysaa marka bracketyada fiiri x iyo 2 sidooda u soo qaadan doonaa x iyo 2 goorta soo qaadato calaamadda u dhaxaynaysa maxay noqonaysaa marka calaamadda u dhaxaynaysa waxay noqonaysaa hadba tibixda labaad calaamadda ka horeysa tibixda labaad waa 4x calaamadda ka horeysa egg waa minus halkan sidoo kale y iyo 1 soo qaado calaamaddan waxay noqonaysaa 2y calaamadda ka horeysa oo plus kadib inta isku soo dardar waa 225 marka si standard form ay u qornaato waxaan rabnaa meesha ugu dambaysa in 1 uu soo baxo si 1 uu soo baxo marka 225 dhan walba u qeybi isu saar goorta isu jarjarta kadib waxaan intaas ku soo haraysa standard form bay u qoran tahay kadib waxaan sameyn doonaa stebyada aan mari jirnay marayna equation-ka day aan ka shaqeynay sida soo qaad centerkan raadinayna marka centerka uu fudud yahay waa k iyo h qiimayaashoodii way waa 2 kan iyo 1 kan oo calaamadaha laga bedelay way laftooda ay a raadin a square garaysan waxa la eg tahay lambarka weyn 25 b waxa la eg tahay lambarka yar oo 9 square root-ka ka saar 3 baa soo haraysa u fiirsa marka a xagee way hoos taala a waxay hoos taalo lambarka weyn x bay hoos taala si awgeed marka x ku sameeyay doonaa major axis-keena barta tan aad taagan tahay centerka waxaa midig u durugtaa 5 u durug hadaa 2 taagan tahay oo 5 midig u durugto xagee tagaysaa 7 baa tagaysaa waayo 2 baa taagnayd 5 bidix u durug waxa tagaysaa negative 3 baa tagaysaa waayo b da imo minor axis-ka b ah wuxuu hoos yaalaa y sabab marka kor iyo hoos baan u durki doonaa 3 kor hadaan u durko negative 1 baan taagnaa kor hadaa u durugto 2 baa tagaysaa negative 1 baa taagan tahay hoos waxa soo durugtaa 3 negative 4 baa imaanaysaa kadibna isku soo xir qabaalkaagii baa ku sameysmay hada wabillahi at-tawfiq